madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu xogayaha arrimaha dibadda u magacaabay Antonio Blinken xilkaas oo ah kan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka. 58 sano jirkan ayaa horey u soo noqday ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka, la taliyaha amniga qaranka ee maamulkii madaxweyne Barack Obama xilligaas oo Mr. Joe Biden uu ahaa ku-xigeenkii Obama. sidoo kale mas'uulkan ayaa soo qabtay xil sarsare oo intooda badan ku saabsan arrimaha dibadda iyo aqalka cad ee laga maamulo waddanka Mareykanka. waxaana la filayaa in uu maamulo ajandaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Joe Biden, taas oo mar kale diiradda lagu saari doono sidii wada shaqayn dhow loola yeelan lahaa xulafada reer Yurub. markii uu madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uu shaaciyay in Mr. Blinken uu yahay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka, ayaa Mr. Anthony waxa uu mahadcelin ku soo qoray barta Twitterkiisa isaga oo madaxweyne Joe Biden ugu mahadceliyay xilka culus ee isagu u wakiishay. waxa uuna u mahadceliyay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden isaga oo sheegay in markaasi loo igmaday xil aad u culus isaguna uu rajaynayo inuu ka soo bixi doono. waxa kale uu u mahadceliyay Mr. Anthony dadka xulafadiisa ah amaba saaxiibadiisa ah oo markii la shaaciyay in uu yahay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka fariimahan balaya la wadaagay sida uu ku soo daabacay barta uu ku leeyahay Twitterka. in hogaamiyintii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mr. Mike Pompeo ay markaan soo cidlaatay ka gadaal muddo uu wasaaraddaasi uu maamulayay. waxaana muuqata in tan markii Donald Trump uu talada waddanka Mareykanka la wareegay in Washington ay lumisay xulafo badan oo muhiim ah. inkastoo hadda xogayaha sii tegaya ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Mike Pompeo uu safaro muhiim ah uu ku joogo bariga dhexe. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.